Real kulmadii soo socda kulanka soo socda waxay la ciyaaraysaa kooxda Real Betis Real Betis okay ba ni horta Betis wani waa iska horta ilmo mushkil meesh way joogaan laakiin Real Betis bay la ciyaarayaan maxay noqon kartaa kaba sama ka shakar laakiin waxaan isleeyahay Betis horta xoogaa qatar waa laakiin Betis ay la ciyaari doontaa waxa laga yaabaa inay dhaafaan waa laga yaabaa Eibar kuwaas way ka badin karaan baan isleeyahay Valencia waa kulan adag oo Real Madrid lagu gaadayo markay Real hadda la ciyaarto kooxda Betis oo ay la ciyaarto kooxda kubadda cagta Eibar waxa ugu xigta Valencia waa kulan la soo Real Madrid oo lagu gaadayo ay Barca isleeyin yes habeenkaas isleeyin gaada oo ha ku faan laakiin hadii habeenay sida u ciyaarto Madrid ay u ciyaarto sida habeenay shaqada ugu go'oneed hadii ugu go'naan doonto Valencia la xataa waa garaacayaan balse Valencia waa kulan Real lagu gaadayo Barcelona leeyin yes habeenkaas gaadayna habeenkaas noo ku fayeen leeyin yaa ugu xigma taqaan hadana Real Sociedad waa nimankii Real Madrid inta ugu yimaadeen Bernabeu 4 gool ka dhaliyay dal reegana ka reebay nimankaas nimankaas waa nimankii Madrid marada kariida weeyaan nimankaasna waa niman kale oo Madrid lagu gaadayo hay Valencia Sociedad isku xiga labadaas kulan waxa ugu sixiga Mallorca way ka badayaan Barcelona waxa ugu horta Real Madrid aan ku sheegaya kulamada yaryarowga xataa ilmaha yar la ciyaaraysa Real Madrid inta badan ku weerartaa habeen dawad balaayaha saarad ma aqaan oo meesha ugu timaad waxa ka ma burhaanta Cristiano Ronaldo ba idin keenay ma aqaan habeen dawad balaayo idin saarad ma Barcelona ba buluketi ahayd mis idinka balaayo oo kala saari lahayn anigu habeen dawad waxa ahaydeen waa la yaabahayba habeen dawad Madrid wax kala bay ahayd ma balaayo ba idin saarad habeen dawad burhaantiini ba kacday mis Barcelona ba buluketi ahaydon shub ahaydon xoog badnayn aan watan la yaabanahay marka Real Mallorca way la ciyaarayaan Espanyol way la ciyaari doonaan Bloquete waa Getafe xogaa waa Ruin Bilbao Qatar waa kulan saddexaad oo Real Madrid lagu raadin doono waa Real Valencia Real Sociedad iyo Athletic Bilbao waa saddexda kulan ee Madrid ugu adag waa macna ay wajihi doonto kadib waxay la ciyaareen Alaves Bloquete waa Granada ma xoog badna Villarreal xogaa Leganes way ku dabaalday karaan kuwa ka waa kulamada u harsan Real Madrid weeyaan ka soo bilow Betis Eibar baa ugu xigta Valencia Sociedad Mallorca Espanyol Getafe Bilbao Alaves Granada Villarreal iyo Leganes marka Real 12 ciyaar baa u dhiman waxa kaliya ugu harsan horta miyay 12 weeyaan waa 12 ciyaarood weeyaan marka Real 12deedu waa taa waxaana ugu daran Valencia Sociedad iyo Bilbao hadaan u aadna Barcelona yaa u dhimay marka iyaga Barcelona marka hadaan loo soo laabto ayaaba laga yaabaaba in balaayo kale ay gasho maxay waxay la ciyaarayaan nimanka la yiraahdo Real Sociedad waa kulan adag Real Sociedad labada dhinac ugu kala jirtaa Real Sociedad marka Barcelona way la ciyaarayaan marka Real Sociedad lama tirinayo inuu yahay kulan weyn looma tirinayo inkastoo adag kaan karo Barcelona Real Sociedad waxa ugu xigi doonta Real Mallorca waxa ugu xigi doonta Leganes waxa ugu xigi doonta Sevilla waa kulan kamida kulmada ugu weyn ee Barca sugaya Sevilla waxa Barca ugu xigi doona Atletico Bilbao warwa meesh way yaala waxa ugu xigi doona kooxda kubadda cagta ee Celta Vigo kadib waxa ugu xigi doonta Atletico de Madrid warahaahe kadib waxa ugu xigi doonta Villarreal waxa weeyaan mushkilo kabiir weeyaan waxa uu xigi doonta Espanyol kadib Valladolid kadib Osasuna kadib Alaves marka Barcelona waxa uu harsan guud ahaan marka la fiiriyo Sociedad iyo Mallorca iyo Leganes iyo Sevilla iyo Athletic iyo Celtic iyo Bilbao iyo Madrid iyo Villarreal Espanyol iyo Valladolid Osasuna Alaves waxa weeyaan ciyaaraha baa sugaya marka Barcelona Real Madrid waxa weeyaan kulamo adag ayaa sugi doona oo labada kooxoodba ciyaaro shub ah ay wajihi doonaan inta aan horyaal ku dhamaan marka waxa weeyaan niman kale yiraahdo Barcelona hadda hogaanka waa laga hayaa oo Madridistu baana hogaaminaya labada koox waxa u dhaxaysa dhibcood baa u dhaxaysa todobaadkan Barcelona laga badiyay hogaanka looga qabtay marka Barcelona ina waxa uu adkaan doona kulamada ay la ciyaari doonto Atletico Madrid Villarreal iyo Sevilla Real waxa ugu adkaan doona kulamada Valencia Sociedad iyo Bilbao